بدك سو gaarayo ama ilaahdo maqalkayga iyo muuqaalkayga bedel ka soo gaarayo ku soo dhawaada barnaamij kooban oo dhinaca suugaanta oo aan dabcan ku eegi doono hal abuurka dhalinyarada ah ee Soomaalida ah jiilka cusub hadda iyadoo loo rayn suugaanta Soomaalidu ay marba ehelkeeda leedahay oo marxaladaha kala duwan iyo taariikhaha kala duwan soo martay mar walba ay ehelkeeda iyo dad u darban markaasi ay leedahay halka waxaan soo gudbinaynaa mid ka mid ah hal abuurka dhalinyarada ah ee Soomaaliland oo isaga aynu eegi doono walintiisa suugaaneed iyo waliba qaybaha ay ka kooban tahay Cabdiraxiin Maxamed Ismaaciil oo lagu naanayso Suldaan Murtile ayaan dabcan waraysi halkan ku yeelan doonaa ee ku soo dhawaada wadawa shacab aad baad u mahadsantihiin saad ii soo dhaweyseen waan mahad celinayaa magacaygu waa Cabdiraxiin Maxamed Ismaaciil Suldaan Murtile ku magac dheer ku dhashay Gaarisa magaalada laakiin xaggan uma ku barbaaray ilaa yaraantaydii 6 jirkaygii ilaa imika suugaan badan baad tustay ama aynu wadaagnayntii aad xiriirnay marka war suugaanta hadma ku warartay ama ku bilaabantay walinta suugaanta adugu muddo ku siman ilaa 10 sano ما تسمعي انت بدات بحيرة سوغانتا ويا كيرا اما اختك كيرا اما وح كيرا مهمه يا والله ادغو حق ولري سوغانتيdu kulay suugaantu way iska noocyo badan too way jirtaa hibakaanta iyo hidakaanta iyo garaansa iyo taydu laakiin waxaan saadaa marmarka qaar waa hiddi waxa raac baan oran karaa xagga qoyska ka soo jeedo way tirin jireen kulay hibana way jirtaayo wata aan tirinayaba ya hada xilli waxa jirtay ma saatirisayo hooyada ma sidaasi iyo xilliga tirisay iyo waxyaabihii ku dhaliyay iyo taariikhda inta loo sharaxo iyadana loo sidaa ma sida hooyo waa ma soo dareen iyo jacaylba ma garanaysaa iyaga keenay kulay in badan ba abwaanada Soomaaliyeed ay soo tiriyeen maaso ama gabayo hooyana waa shayga ugu qaalisan dunida aad arkaysaba hooyo la'aan cidima ma noolaataba ma baynaan jirneen haddaanay hooyo jirin ma sida hooyo waxay dhalatay waxaan tiriyay 2019kii horaantiisii waxaan u hibeeyay maamaday Saada Cabdiraxmaan Faarax iyo dhammaan hooyooyinka oo dhan waan jecelahay aad baan u jecelahay maamooyinka Allah hadaayo ma sida waxay odhanaysaa erayadeedii waxa ka mid ahaa maasada horta magaceeda hooyo la yiraahdo waxay odhanaysaa hooyay adduunyadu harka labada gelin iyo habeen iyo dharaar iyo hayaan weeyegeediya ayaamaha hirdamayiyo waqtiga had iyo jeer kolba taagan heero nolosha is hareertaal adiguna huqiya daal hooyay hamudan oo ifka hiba ku noolow hilbihii jirkaygay wadnaa dhiiga horeeyay halbowlaha wareejaad kula daahad iyo jeer haku dhowroweynuhu intaad hooyo nooshahay hodan noqo adduunyada nimcaduna ku hoostaal hoodalay arlada joog aakhira halkii roon hadhacii fardowsaad hooy eebba kaa geli helidiya nasiibkana rabbi hadiyad ku sii qof baa tahay hubaashii igu korisay hagarli garaad iyo hubsiimo leh xilligan hadaaqiyo hadalladii dhalaannimo hooyo lagu bilaabiyo hooyo sabi ahaantii ilaa heerkanaan jiro hawraar ammaan huwan hanad iyo haldoor iyo halkaraan nin geesiya haliyay iigu yeedho maxaad hoobalaydiyo heesaha macaanka bariyay igu habayso adigoo haraad qaba ishaleeli weydood himir igu sabaysi habeenkoo barkii tagay hooyo seexan weydo anigoo hurdada laday adiguna hubaashii hor alle xaqiiqdii dartay uga hilowdood ii heelanaydood hadba dhinacyadayda iyo hareerteeda eegtood isku hawshay awgay hooyay waxaa tahay halbowlaha jirkaygii hanaqayga beerkee ilaahay hadbaa siiya hanfi iyo kulayliyo hagardaamo kuma bado aamiin
hooyoy ha dheeraan hoqiyo ciil ha eersanin cadowyow ku heetayn hareertaada yuu marin halowyuu ku soo odhan hareertaada guuluhu garabkaa u hiil noqoy hantaaqyay ku soo marin ducahayse weligaa hoygaad ku nooshahay nacab kuma haleero horor kuma soo dhaco ruux kastoo hab qaadaba adigaa hagaayo una hayo hoggaanka ugu tala hagaagsane hanka ruuxa kaabaay himilada naftaydaay hiigsiga garaadkaay horseedkii libtaydaay hibar rabbi ilhaamiyo hadi eebba bixiyaay waxaa tahay hubaashii hantidayda guudiyo halbeegayga noloshoo la hilmaami karinoo waxaa tahay hirdoogliyo hadhacan agtiisana geedkaan harhkiisii hadhsadoon ku noolahay hurimadii afkaygana adaa hooya buuxshee hooya dhaayahaygana hogashoo da'aysiiyo hilaac baad u tahay hooyo way ku eegtaan hayiin baad u tahayoo haybadii naftayduna hubaal adiga weeyaan maasadu intaasay naga dhan waa maase aad u xigmad badan dabcan oo xambaarsan wax badan oo ay hooyadu leedahay oo ilaahay ku ilhaameeyey amase ilaahay awood siiyey waxaa ku jira erayo kala duwan oo malaha fahamkeena kala duwan kolley waxaa jira geedka himirta laga aankaabooga himir waxaad uga jeedaa geedkaasi waa geed ku yaalla sanaag uu ka baxaa oo geed macaan dee la jecel yahay midhuu bixiyaa aad iyo aad waqteedu waxaan isweydiiyey nin dhalinyaraan wey geedka himirtuna waa geed inta badan aan dhulka ka bixin marka saas soo dhig marka waa maase aad u qiimo badan maasadan waxaa dareema mataqaanaa oo keliya dadka aan hooyooyinka lahayn dad badan waxay odhan karaan hooyaday badan baa loo gabiyey waa loo heesay maxay kaga duwan tahay maasadan cabdilxiin tiriyey maasooyinka kale hooyadu dee kolley dareenka adiga ku lama aniga dareenkan igu lama waa hooyo jacaylo yaa waxaan odhan karaa hooyadayo dee 2 jeer waalidii noqoto kolna aabbe iyo hooyaba ii noqotay dee yaa marka kaalinta aabbiye kaalinta hooyadu iyada ay buuxisay aabbahayaanoo aad u yar buu dhintay maogta allah yarxam raximin deetana kaalintii baan markaa taa lafteeda maxaad ka tirsa dhinaca wadaniyadda iyo inta badan dadku waa iska caadiyin dhalinyaradu ay ka gabiyaan wadaniyadda iyo arrimahaasi ka wareegay arrinkaas iyada qudheeda waan tiriyo wadanku horta wadanka innagaa iskala dee maansidan waxaa la idhaha tacliin waxaan sameeyey waqtigii aan ku jiray shaqo qaran oo aan ku dhiiri gelinaya dhalinyarada waayo wadanku dhalinyaro ayuu wax ku yahay adduunka dee adduun weynaha innaga malaa dee dhalinyaradeenna waa la reebaaye laakiin caalamka dee dhalinyara wax bedesha iminka nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waqtigiisii haddaynu eegno isagu kudayashu inaga mudan yahay 17 jiraa loo dhiibi jiray dee hoggaan ciidamo dhan hoggaamin jiray sidaa darteed anoo dhiiri gelinaya dhalinyaradan oo leh wadanku idinku wax idinku yahay ayaabaan tiriyey tacliin waxay odhanaysaa arday yahay tacliinsada heerka dunida tamaniya tacabkiin ha muuqdee cilmigana tibaax iyo tartan geliya maanko ku tiraaba gobonimo tooraheed halkuu yahay qaata taashka noloshiyo tiigsado weliba hela haddaan tuducyo suugaana ku cabiro tilmaamtayda haddaan taariikhda guunka markaan teebka aan baadho murtiday tidhi haddaan sheego haddaan tabashadeenniyo dhiirigelinta toolmooni hadduu tabinin maankeennu tidcantiyo odhaahdayda tixaad duluc ku soo koobo shinnidaba tacabkeeda aadmi baa ka dheeftaabta malab iyo tilmaanta hoosan taasaar mas-uulkeeda boqorkay ku taantahay kala tega la'aantiisa idinkuna tabtee raaca arday yahay tacliintiinna ku taageera qarankiinna hankiinnuna ha toosnaado yuu tacab khasaaroobin qaran idinku taamaya intaad taran ku sii reebto tallaal maangal aad beerto waa tamarsan doontaane wuxuu tamani yoolkaagu tallaabooyin hanaqaada bulshadu ku taariikha intaas ku dhanta waa afar yaro gaabaro aynu kasii socno xagga jacaylka malahayga dhalinyarada ay ka gabeen ama ka heesaan ama ka munaasabada bal iyadana maxaa jiray jacayladu waa badan yihiin waxaan idiin soo qaadan doonaa maanso laydhaa mudan
ya ninaan saaxiibnay waxaan tiriyey 17kii baan tiriyey sababtuna waxay ahayd ninaan saaxiibnay iyo jacaylkiisii oo sir qabtay aan dhexdhexaadinayo dabeetana waxaan odhanaysaa markaan eegay xaajada maskaxdiiyo garaadkiiyo maankayga kaashado aan curiyo maansada miimkeeda aan dayo dawgeeda mariyoon micnihiiyo ujeeddada murti aan ku koobay maqaloo tixdaydani ilaah igu manaystiyo maaxdayda aan gudhin aan kuuba maalee waxay mudantu leedahay dhugoo talada meelee geesna yaanay kaa marin inantaasi maandhow marwo aad ku sheegtay gobonnimada maashee ku manaysta weynuhu may rabin khilaaf iyo hadal maanku diidee may rabin iswaagiyo inay mudato ciilkee cadhadaada may rabin mar inaad ku joogtay farxaddaada maandhow mabsuud inaad ahaatay ku mashquulsanayde afkanaa maruu yidhi erayadaa maroore milgahaaga dhowre kuugu meeriskoysee waayaheedii may rabin dibimilicsigoodii waxay lahaydba maydho maruu dhaafi ruuxdoo ayaamii maroorsamay nasiibkeedii maaxdume waaye mahadhadoodii xasuusteeda murugiyo dharaarii madooba inaad maya tidhaahdana qalbigeedu muu rabin maamuus jacayl iyo xishood bay la maagtee maxay kugu samaysaa oo naqaanaa gabay geeraar maanso guurow jiifto intaba وهاجاك داوديال inta saynu ku soo gabagabeynaa barnaamijkan dhinaca suugaanta ah ee aan ku wareysanaynay abwaankan hal abuurkan curiyahan daada yar Cabdiraxiin Maxamed Ismaaciil oo Suudaan Murtala lagu naanayso taliyaas maqaar dambe waa bahda dawan media oo dhinaca Afriqaasta uu ama duubista uu lahaa Khadar Axmed Xaashi aniga oo Salmaan Cabdi Cali nabadgelyo